Faa'iidooyinka caafimaad ee ay leedahay biyaha liinta. Horay u riixidda difaaca jirka. Biyaha liintu aad ayay u heer sareeyaan, waxaana zaid uga buuxa vitamin C. Vitamin C-gu wuxuu kacshaa soo saarka unugyada dhiigga caska, kaasoo aad muhiim u ah difaaca jirka si uu si habsami leh u shaqeeyo. Sidoo kale wuxuu ka ilaaliyaa unugyada in oksijiinku uu isku laalo dhacaamada jirka ama process la yiraahdo oxidation, kaasoo sameeya xanuuno tiro badan. Waxaa hubaal ah cabidda biyaha liinta maalin kasta in difaaca jirkaagu uu leeyahay difaac dheeraad ah. Dheelitirka heerka pH-ka. Liintu waa mid ka mid ah cuntooyinka la dhaho alkalizing ee jirka. Asal ahaan waxay ka samaysan yihiin aashato, laakiin jirkeena gudihiisa waxay yihiin alkaline maado ahaan. Liinta waxaa ku jira maadooyinka citric iyo ascorbic. Liinta fudud ee ku dhex falgashay jirka dhexdiisa waxay u oggolaanaysaa dhiigga inay ka saarto alkaliga. Cudurradu waxay dhammaan yimaadaan markii pH-ka jirku yahay mid aashatoola ah. Cabidda biyaha liinta markasta waxay la dagaalamaysaa maadooyinka aashatada ee jirka, kuwaasoo ka kooban uric acid-ka ee isgoysyada lafaha, taasoo ah midda ugu weyn ee keenta lafa xanuunka. Maskaxda iyo unugyada halbowlaha. Maadada potassium-ka ee ku jirta biyaha liinta waxay nafaqeeyaan unugyada maskaxda iyo kuwa halbowlayaasha. Ka hortagga kansarka. Sida laga soo saaray tijaabooyin la sameeyay, biyaha liinta waxaa ku jira maadada citrus limonene oo ah maado ka ilaalisa xubnaha dhaawacma, teetanada iyo infekshanno badan, iskuna beddeli kara kansar. Infekshannada saableyda neefta. Biyaha liintu waxay kaa caawinayaan inaad la dagaallantid cuno xanuunka iyo caabuqa qulmannada. Dedejinta dheefshiidka. Biyaha liinta ma ahan oo keliya inay dheefshiid caafimaad qab ah dedejiyaan iyagoo yareynaya bakteeriyada sababta calool fadhiga, laakiin waxay yareysaa daacadda badan, nabar caloleedka iyo lalabada. Dheelitirka heerka sonkorta dhiigga. Biyaha liinta waxaa ku jira maadada bioflavonoid, taasoo ah midda ka dhigta liinta midabka huruudda. Bioflavonoid-kaas wuxuu kor u qaadaa soo saaridda insulinka sonkorta shiida, waxayna qofka sonkorta qaba ka caawinaysaa hoos u dhigidda heerka sonkorta. Aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan subscribe channel-kan si aad ula socotid fiidiyoyaal badan ee soo socda.